بسم الله والسلام adiga dhageystayaashaba runtii waa wax ku cusub kadib dawladii militariga ahayd in yani hangash iyo dabarjibin iyo xabsiye aan la aqoon in la sameeyo waa wax ugu cusub oo 4 sano xukuumadda farmaajo ay dalka ku soo celisay isaga oo ku dayanaya qaab dhaqankii adeerkiis marka aad baan uga xumahay waa wax jiro balse waxaan u sheegaynaa in yani lagu halaagmi doono haddii aan laga waantoobin qaab dhaqanka dictatornimada waa wixii Soomaaliya ay shalay ku kala tagtay hadda cid yeelaysa ma jirto in la soo celiyo qaab dhaqameedka noocaas ah xabsigaasina waxaan u sheegaynaa cidda samaysay in aan yani baydhabo cidna laga xigin ay tahay yani magaalo ay wada leeyihiin digili berifle aan cidna laga xigin mucaarad iyo maxaafidna ay wada tegi doonaan haddii la isku dayana haddii in faraha laga wada guwan doono waxaan rabaa inaan wax yar aan ummadda Soomaaliyeed iyo rooble aan ugu baaqo intii beri la dhihi lahaa hala soo kala dhaxgalo iyo xiisada hala dejiyo intaan la gaarin hadda ayay yani daba qabasho leedahay arintan si degdeg ah loo farageliyo haddii la yeeli waayo haddii wixii ka timaado roob lug dusha saaro mas'uuliyaddaasi adiga qaadi doono intaasaan leeyahay taas xabsiga xagee aad ogtihiin laga hirgeliyo baydhabo ka tirsan sida naloo sheegay ama warbixinta aan ku helnay xoogaala ay noo warameen waxa waaye meesha laga hirgeliyey garoonka diyaaradaha shaati gaduud waayahay bal magaalada baydhabo waa tahay marka xabsigaas maxaa caddaynaya in mucaaradka loogu talagalay in lagu xidho ama siyaasiyiinta mucaaradka ah waxaa caddaynaysaa in magaalada baydhabo horta ay yani haystaan ciidamo Ethiopian ah maalmihii bisha waxaa lahaa August koodeeda waxaa tagay kolonijis nin la dhaho ayaa tagay magaalada baydhabo isagoo wata ciidan lagu qiyaasay 35 askari wata kadib waxay galeen xerada ciidamada Ethiopianka ah waxayna ku codsadeen in yani ragga musharaxiinta mucaaradka ah ka fikrad duwan in mataqaana haddii baydhabo ay yimaadaan in la qabto ciidamada Ethiopiankii waa diideen waxay dhaheen annaga tii horaan ku fashalanay yani mar dambe arrintaas oo ku galbeed ma faragashan doono halkaasoo weliba lagu soo handaday sheekaalnimadu oo markaa deganaa hotel u dhow airportka degnaa marka waxyaabahaasi waa jiraan waa wax xaqiiqa ah marka ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca koonfur galbeed ama dawladda federaalka oo lagu caddaynayo in xabsiga loogu talagalay in mucaaradka ama dadka ka fikrad duwan ee koonfur galbeed ama dawladda federaalka lama sheegin arrinta waa jirtaa annagaa sheegayna annagaana caddaynayna taas waxaad u qaadan kartaa hadaladii ka soo yeeray ninka farmaajo ugu wakiilka ah magaalada baydhabo ee la dhowlafta direen maalin dhaweed waa tii uu afka furtay uu lahaa dagaal baa laigu soo qaadayaa waa la is abaabulaa waa la soo socda u dhahay uu idaacadda ka sheegay taas ayaa caddeen u ah inaysan yani xaaladdu ahayn xaalad degan marka waxaan leeyahay lafta dhereed biyo calow ah ayaad rabtaa in aad ka kaluumaysatid taasina yani waa ku hungoobi doontaa insha allahu waxaa kaloo caddeen u ah in yani guddoomiyaha xisbigayni amniga iyo cadaaladda uu ka hadlay daraad arrintaasi marka waa aga digaynaa in biyo calow ah laga kaluumaysto waa aga digaynaa waxda farmaajo waa gartay marka dabcan baydhabo doorasho aqalka sare ayaa ka dhacday golaha aqalka sare ee koonfur galbeedna ku matalaya dowladda federaalka Soomaaliya bal doorashadaasi dhacday maxaa aad ka tiraahdeen oo war ahaan aad ka soo saarteen mase jirtaa in xubno idinka mid ah oo musharaxiin ah in loo diido in doorashadu ay ka qayb galaan horta waxaan aad uga xumahay in aad tirahdid doorasho dalka doorasho kama dhicin waxa socda waa xulasho marka xulashadii ayaa waxa xulashadii naftigeed ayaa kala fiican koonfur galbeed waxaa ka dhacday xulasho qaawan ayaa ka dhacday
taasoo yani lagu xushay ooryo wadaag candho wadaag naas wadaag iyo nikax wadaag marka aad baa naga xumahay in aad tirahdaan nimantiina wariyayaasha ah ama meediyaha doorashaa dhacday war doorasha ma dhicina waxa dhacay waa xulasho hebel baan u tanaasulay heblayan u tanaasulay shay wallaahi yani wax noocaasa in mataqaana dalka looga dhigo yani masiirkii dalka in lagu fasahaadiyo ayaa waxaasi dhan loo samaynaya marka maxay kula muuqanaysaa marka xilligan waxa dalka ka socda arrimaha xaaladda kala guurka ee xilligan lagu jiro adeerow dalka meel halisa itijaahiisa wuxuu u jeestay meel aad iyo aad halis u ah taasna waxa yani caddeen u ah dhaqaaqa ugu horeeya oo hadda yani xulashada ay ku bilaabatay ayaa caddaynaysa dalka itijaahiisa in uu yani meel halisa u jeestay dadka isku dayaya in ay yani quraasta dadku u xiraan ama hebel baa kursigaan leh iyo heblahayaasaan taasi waxaa annaga nooga daran ninkan yani adeegaha u ah farmaajo ee baydhabo joogaaye ee wakiilkaaga ah ee raba in yani musharaxiintii yani ka fikrada duwan nidaamka hadda jiraaye in doorashada loo diido taasina waxay keenaysaa waa waray waxaan leeyahay inta waxaasi oo dhan ay dhicin in yani hadda laga hortago intii beri la dhihi lahaa xiisada hala dejiyo hala kala dhex galo intii la dhihi lahaa berito waxaan leeyahay aan roobla ugu baaqaya in hadda yani si degdega arrintan loogu hortago oo loo farageliyo maxaa yeelay reer koonfur galbeed weli yani ma ayan ka heshiinin xasuuqii iyo tacdiyadii ka dhacay 2018 doorashadii ahayd weli kamayna heshiinin dad baa la laayay maati baa la xasuuqay murashax u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa ilaa iyo hadda miiska farmaajo hoostiisa ku jiro madaxweyne mukhtaar roobow marka waxaan leeyahay hadda ilmihii waalidiintood iyo dadkii ilmahood iyo waalidiintood iyo walaalahood lagu xasuuqay hadda adeeryaalo yani ka aamusi maayaan marka waxa weliba annaga daba taagan oo yani mar walba yani ugu baaqeen dadka inay isdejiyaan hadda laakiin haddii ay timaado in dadkaasi haddana mar labaad rabitaankooda loo diido ama caburin lagu sameeyo hadda waxay keenaysaa dhibaato weyn bay keenaysaa waxaan la arag oo la maqal baana yani ka imaan doono magaalada baydhabo iyo baraawe laakiin aan hadda yani sida yani aan ku baaqnay loogu dhaga laab u duleela hadduusan yeelan waayo roob leh baaqiyadeena uu tixgelin waayo haddee waxaan leeyahay berita wixii dhaco adigaa ka mas-uul ah sababtoo ah adigaa xilkaasi doorashada dhabarka saartay marka intaan la gaarin xulashada iyo waxa lagu magacaabay doorashooyinka koonfur galbeed waxay u baahan tahay in si degdeg ah laga soo hormariyo wax walbo waxa la dhaho dib u heshiisiin la dhaho dib u heshiisiin waa in la sameeyaa intaan yani wax kale la bilaabin dib u heshiisiin waa in la bilaabaa koonfur galbeed maxaa yeelay dad yani isu mataqaanaa ma wada joogo dhibaata ka dhacday xasuuq baa ka dhacay musharax baa afduwan haddee iyadoo waxaasi dhami aan la xalinin in la dhaho yani xulashaan qabanaynaa iyo doorashaan qabanaynaa hadda waxaan u malaynaa inay tahay khayaali iyo baydhabo ma imaan karaan mucaarad iyo dad naga fikrad duwan ma imaan karaan hadde magaalada baydhabo iyo baraha waa la wada leeyahay reer ma lahan qof shaksina ma lahan marka waxaan leeyahay rooblow dhagalaab u duleela ku dhegayso baaqyada reer koonfur galbeed intaasaan leeyahay